kulankana uu ujeedkiisu ahaa sanad guuradii lixaad ee dhismaha Al-Ansar FC isla markaana lagu taageerayay tala qaran ayaa waxa uu ka dhacay magaalada London ee wadanka Ingiriiska. kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay qeybaha kala duwan ee jaaliyadda Soomaaliyeed, la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya dhinaca horumarinta qaranka Qaasim Maxamed Cali iyo xildhibaan ka tirsan dowladda Ingiriiska oo lagu magacaabo Andy Slaughter. dadkii halkaasi ka hadlay ayaa hadaladoodii waxaa ka mid ahaa sida tan. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Al-Ansar, our 6 years celebration for the club. Al-Ansar fikradeedu waxa waaye in la helo ciyaarka Soomaaliyeed meel kubadda ku ciyaaraan, meel isku bartaan, hooyooyinka iyo mataqaana aabayaasha dagaalka meel isku bartaan. Allah musta'an meel community-geena mataqaana isugu imaan karayaan oo future-ka ciyaarka lagu dhisaayo oo laga ilaalinayo kadalika khatarta ee leedahay jidku uu leeyahay, khatarta ee leedahay mataqaana inuu sameeyo community jirin, khatarta ee leedahay isku xirnaan la'aanta, khatarta ee leedahay Al-Ansar waxay naga caawintay waxyaabo badan. waxaan helnay facility badan aan helnay in caruurteena ay game ay dheelaan training fiican ay helaan in loo kaxeeyo tribyo ay la tartamaan kooxyo kale oo ka soo horjeedo aasin oo tala qaran madaxdeeda ah ee fikradiisa asaga ay ahayd. waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed kulligood ugu baaqaya inay tala qaran mid ka noqdaan ay nagala soo qayb galaan muxuu ahayto si wadankeeni qarankeeni dumay dib aan ugu dhisno oo anagani aan hal gacan oo isku duuban aan noqono. gabagabadii kulanka ayaa halkaasi waxaa ka hadlay xildhibaan Andy Slaughter iyo la taliyaha madaxweynaha Qaasim Maxamed Cali. But also because I know we're going forward with for the first time elections in Somalia which will have xildhibaanka waxa uu yiri waa ay ku amaanan yihiin dowladda Soomaaliya qabashada doorashooyinka iyo tan dhacaysa 28 bishan. And I hope that I know it's important to the community here as it is community back in Somalia. waxaa kaloo uu sheegay xildhibaanka inuu jecel yahay inuu yimaado Soomaaliya doorashada kadib. maanta halkan waxa isku yimid galbeedka London ee xaafadda Hammersmith ama Shepherd Bush ama White City iyo dhammaan dadka agaarkooda degan sida looga qayb qaadan lahaa barnaamijka tala qaran ee aan sameynay ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ku soo daafuray magaalada Muqdisho bisha hadda la soo dhaafay 2016 November. waxaan uga mahadcelinaynaa Al-Ansar FC inay taageereen barnaamijka tala qaran. waxaan sidoo kale uga mahadcelinaynaa xaafadda MB-ga xaafadda Andy Slaughter oo nagala soo qayb galay oo u rajeeyay ummadda Soomaaliyeed doorashada iyo waqtiga ay ku jiraan guul insha Allah taala. waxaan u rajeynaynaa haddii Alle idmo madaxda Soomaaliyeed guul, waxaan u rajeeyay guul sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wanaag oo ummadda u soo qabtay. waxaan insha Allah taala rabnaa inaan dalkeena dhibaatadan ka saarno. community-geena isku yimid ee maanta taageeraya barnaamijka tala qaran meeshaan isku yimidna waa uga mahadsan yihiin. Yusuf Garabay, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, London.